مسألة آدابته كصابسا ومسألة دينية. مثلا دينهان ما بنانا تما بدنا إن للريبه بدنا لدايو بدنا لحيره وحيابا غريب كاو حكم ده waxay Soomaalidii magaalada joogi jirtay ceeb u yaqaaneen ayay imika kuwan dambe ilbaxnimo ugu yaqaaneen midna magaalooyinka waxa la soo dhan jiray hebel waa dhoorka soo taqaaneen Soomaalidii baadiya ku noolaan jirtay gafaad iyo biyo iyo waxba ma jirin marka carruurta way u xiiri jireen laakiin inamada iyo hablaas ay u kala soocaan qaarna food bay u sameyn jireen qaarna dhoor bay u sameyn jireen ma banaana diin ahaan in qofka timaa inta in laga xiiro in yar la soo reebo magaalada marka la yimi qoladii magaalada joogtay qofka ay leeyeen waa reer baadiya ama waxba garanayaan waa dhoor rabay oran jireen iminkana dhoornimadii ba faan idin noqotay waayo gaal dhoorra aba aragteen waxa ajabta qaba gaalku markuu dhoorraha noqday ayaa dhoornimadii halka kan faan ka noqotay waxaan leeyahay dhaqan waliba oo dad leeyay wax xun wax san iyo wax wanaagsan waa leeyay diimaha waxa loo soo dajiyay in lagu saxo dhaqamada wixii qaldama marka ka diin ahaan muslim baynu nay dhaqankeena waxa ku jira qaldan inaynu saxanna bayna saaran inaynu dhaqanka ka guurayna ma saaran laakiin waxayna saaran wixii qaldani ku jira inaynu saxanno de kana ay weydiinaysaana waa dhaqan gaalada ma ku dayanaa un ilaa kaama aha Soomaalida hore ma ku dayanaaye waxaad u jeedaa in gaal Mareykanka degan kuwan baaskadka ciyaaraha xiirtay dadkoo dhan ugu xiirtay xirnimaadkii waa noqday iminkay gadhka la baxeen dadkii oo dhan gadhku la baxay gadhkii baa amaan noqday yani gaalka Mareykan joogay maalintu xiirtana inaad xiirato maalintu timaa la baxana inaad la baxdaa waa ceeb waxay qof muslimo culture iyo dhaqan loo ku faanaya inaad ahaato oo wixiisa samaysanay